waxaad u jeedaan goobtii hore saakii aroortii aan kala soo hadlayay oo ku sugnaa isgoyskii iyo dadkii shacabka ahaa ee goobtaasi joogay dhammaan waa la kala ceeriyay ciidamada booliiska ayaa kala ceeriyay iyo markaasi goobtii oo u jeedaan isgoyskii cidlo ayuu noqday waxa loo ogolyahay kaliya dadka shacabka ee iskiga kala gooshay degmooyinka Shangaan iyo Boondheere waa loo diiday in halkaasi dad ay ku hakadaan xaaladda waa isbedeshay oo guud ahaanba shacabkii goobta ku sugnaa iyo wariyaasha ayaa la kala ceeriyay oo ciidamada booliiska kala ceeriyeen marka laamiga ayaaba adkaanaysa in aad istaagtid oo aad wax ama dhinaca taalada daljirka Dahsoon aadid saaka aroortii hore isgoyskaasi ayaan kala soo hadlayay oo dhinaca taalada daljirka oo markaasi intaysan ciidamada booliiska ay imaaneen oo goobta isgoyska waxa ku sugan oo hore marka loo socdo dhanka taalada daljirka Dahsoon ciidamada militariga qaybahooda kala duwan ayaa ku sugan marka dadkaani aad u jeedaan oo xaafadahan ay ka soo baxeen oo Shangaani waxay isugu jiraan dad banaabax doonaya inay ka qayb qaataan iyo sidoo kale in markaasi iyo dadka deegaanka oo xalay dhan dhawaqa rasaasta culus dhageysanaya marka wariyaal badan ayaa goobtan ku sugan waxa kamid ah wariyaasha ee goobtan ku sugan soo faysana markaasi saaka aroortii hore ayuu halkan yimid wuxuu doonayay marka in si dhab ah u soo tabiyo banaabaxyaasha oo u suurtagal weysay inuu taalada daljirka Dahsoon taga laakiin meel u dhow ayuu wararka ka soo tabinay soo faysana soo dhawo bal ka waran saaki xaaladda magaalada Muqdisho banaabaxyada la qorsheynay inay ka dhacaan waa maasantahay farxaanow radio kulmiina waan salaamaya iyo dhageystayaashooda marka sida aad sheegtay halkan ayaan saaka nimid waa isgoyska dabcan ama wadadan waxa ay gashaa taalada daljirka Dahsoon waxayna ka timaada isgoyska Jubba marka dadweyne kala duwan ayaa meesha taagnaa kuwaasoo ay ciidamo kala duwan oo lagu jaray wadooyinka ay ka hor istaageen in ay galaan taalada daljirka Dahsoon oo halkaas dabcan ay banaanbaxa ay iclaamiyeen murashaxiintu ay uga qayb qaataan marka xaaladdu way adkayd meesha dadweynuhu ay taagnaayeen laftigeeda ciidamo booliis ayaa yimid oo kala kaxeeyay iyo sidoo kale warbaahintii aanu ka mid ahayn labadeenba ee halkaas saaka u yimid in ay dadweynaha la wadaagaan wararka ku saabsan banaanbaxan sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee halkan yimid waxa uu noo sheegay sida aad ogeyd in amar uu ahaa meel sare ka soo baxay in halkan laga tago oo yacni warbaahintu iyo shacabkuba ay halkan ay ka dhaqaaqaan dad kala duwan oo aan waraysanay waxa ay noo sheegeen farxaanow in halkan ay sii joogi doonaan ilaa inta ay tagi doonaan taalada daljirka Dahsoon laakiin waxaad moodaa in taas aysan ahayn mid fudud oo ciidamo kala duwan ay halkaas ku sugan yihiin oo militariga Soomaaliya ka mid oo gaadiid gaashaaman wata soo faysano musharaxiinta isbuucyadan waxay qaabanayaan banaabaxyo waaweyn oo shalayba hataa musharaxiinta ay tageen taalada daljirka Dahsoon xalay magaalada waxa ka dhacay aagan dagaal aad u culus oo labada ciidan u dhaxeeyay marka ma ku muuqataa in maanta taalada daljirka Dahsoon dad shacab inay tagaan oo banaabax u ka dhaco waa maasantahay farxaanow lama hor dhici karo wax walba waa la filan karaa laakiin sida aad sheegtay xalay dagaal baa ka dhacay kaasoo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo ciidamo taabacsan murashaxiinta dagaalkaasoo ahaa runtii mid culus oo hubab kala duwan la isku adeegsanayay oo badi dadka magaalada Muqdisho hubkaasi ay maqleen qaarkoodna hurdada ka saliyay marka murashaxiintu way ka hadleen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Sharaf Sheekh Axmed حسن الشيخ محمود عبد الرحمن عبد الشكور عبد الكريم حسين جولاد المسؤولين كله وحنا كأذيان دولة أرنتها سجارهان مدحونها الصومالية مركز هذا السيد مقطع ودكسته أو جشة تعالى درجة الدعسون وحرنتها هاي جديد أيها حرن يعسكر مش يجين إن بيك الدولة وأمر كيما هذا لكن سيد مقطع ماشي على السمال ضد شعب يتجي دونان ومأكا sidoo kale waxaa jirta in cabsi la qabo murashaxiintu waxa ay wacd ku marayeen oo ay ku dhaaranayeen in taalada ay tagi doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha hadda xilka uu ka dhamaaday xilka ku wareejiyay mar uu xalay saddexdii habeenimo meelahaas la hadlayay warbaahinta wuxuu sheegay in oo dadka uu ka codsaday hadda xilligaas uu taagan yahay inay iskugu yimaadaan marka murashaxiintu waxaa moodaa in ay ka go'nayd
dowladdana waxaa moodaa inay ka go'an tahay in halkaas aan la tegin marka xaaladdu waxay u muuqataa yacni in la isku adkaynayo labada dhinac soo fiirsano waxaa jiray waan u dhaxaysa musharaxiinta iyo dowladda si loo baajiyo banaanbaxyadaasi ama si nabdoon ay u qabsoomaan inta badan hadalladaasi ayaa xali fiidkii la hadlayay intuusan dagaalka dhicin maxaa isbedelay dowladda maadaama dhankeeda laga sugayay in ay markaasi banaanbaxyadaasi ay fasaxdo sida ay wararka ka soo baxay ay sheegeen laakiin maxaa isbedelay oo ciidamadan tirada badan loo soo dhoobay wadooyinka dagaalkan maxaa keenay see waxaad ku maqashay waa maasan tahay wararkaas waxay ahaayeen warar madax bannaan oo warbaahinta noqolle ka mida soo gaarayay in heshiisyo is-afgarada ay jireen oo banaanbaxyada lagu baajinayo laakiin kolley si rasmi ah saxaafadda uma aysan soo gaarin waxaa kaloo jira farxaanoo warar kale oo ku saabsan in dowladda laftigeeda arrintaas ay warar hoose ay sheegayeen inay isku khilaaftay sida xafiiska ra'iisul wasaaraha oo kale in laga qorsheynayay in dadka amnigooda la sugo oo banaanbaxyada ay dowladda ka qayb qaadato laakiin madaxtooyada arrintaas ay xoogaa ku adkayd sida warar madax bannaan ay sheegayeen marka waxay ahaayeen warar madax bannaan oo rasmi aan ahayn laakiin warbaahintu ay helaysay marka wax walba laakiin oo jiray waxay isbedeleen xalay kowdii habeennimo marka hub culus uu bilowday oo dagaal uu bilowday ayay wax walba isbedeleen soo fiirsano waa kuu soo gabagabeynayaa xalay dagaal ayaa dhacay waxaa lagu dagaalamay goob ay dad shacab degan yihiin bal ka waran khasaaraha aad ka warhaysid oo ku soo gaaray shacab iyo labadii dhinacoo dagaalantay intuu la geeyay waa maasan tahay khasaare kala duwan baa jiray sida wararku ay nagu soo gaarayaan oo halkan saakay aan nimid dadka aan ka waraysanay laakiin waxaan indhaheenna ku aragnay in khasaare hantiyeed weerarkii iyo dagaalkii xalay uu ka dhashay oo kaalin shidaal oo dabcan lagu magacaabay shangaani haddaan khaldanayn in madfac uu ku soo dhacay oo qayb ka mida darbigii uu dumay musqul meeshaas ku taallay ay dabcan iyaduna duntay ibaab uu dumay nin dhallinyara oo meeshaas jooga waxa uu sheegay in uu ahaa madfac yacni iyo wax qori culus loo kala garan waayo oo halkaas uu ku soo dhacay marka khasaare waa uu jiraa soo fiirsano aad u mahadsan tahay kaasin wuxuu ahaa uri soo fiirsano oo goobta ay kula sugan isla markaana tibinaya banaanbaxyada mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka shangaani oo goobta ku sugan ayaan la hadli doonaa adeer soo dhawow bal ka waran saaka xaaladda jawiga magaalada muqdisho iyo goobtan banaanbaxyada ma banaanbaxyada doonaysa inaad ka qayb qaadataa ama dadka deegaanka tahay anaga deegaanka boodheerana haye dabada raadiyeyna haye ma rabna dagaal haye caruurta ilaa xalay sagaal saac baxsanay haye mafahad haye ilaahay waxaan ka baryaynaa 104 walaalay inay heshiiyaan haye tan baa loogu tarjaalay shacabka Soomaaliyeed xalay dagaalkii ka waran sideed ku waabarisateen maxaa xaaladiisa ahayd dagaalkaasi ma maqleen xalay jungala ku waabaris haye sabaxa la nabi haye wax dagaal ma maqleen hadda la barku waay haye ilaahay labad Allah keeno haye marka waxaa la sheegay in boondheer aagaan in laga qaxayo dadka deegaanka ay qaxeen bal ka waran taasna anaga waa qaxnaha waa sax qaxida haye waa qaxna haye waxaan u qaxnay ilmaha yaryarka marasada ah iyo waayeelada ayaa la baxna maxana haye wax kale oo ka qaxna ma leh haye weligeena soo qaxayna maxad siyaad baray ilaa marka waxa aad ka warhaysid oo khasaare oo dadka deegaanka soo gaaray xalay dagaalkii dhacay miyaa jira maya haye saakay ibid ku dibaabi haye aad ayuu u mahadsan yahay odaygaasi wuxuu ka mid yahay dadka deegaanka oo markaasi inoogu warbixinayay xaaladda saaki iyo dagaalkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho inkastoo uu sheegay inuusan joogin laakiin aruurtii hore saaki uu markaasi xaafadiisa mati uu caruurtiisa iyo dadkiisaba halkaasi uu wado oo maadaama labada ciidan ay halkaasi isku horfadhiyaan taalada darjika taasoon waxaa guud ahaan la wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya kuwaasi oo xalay dagaal culus la galay ciidamo taabacsan midowga musharaxiinta oo maalmihii dambe aad u qabanqaabinaya in markaasi banaanbax uu ka dhaco taalada darjika taasoon shalay gelinkii dambe magaalada taalada darjika taasoon waxaa yimid midowga musharaxiinta oo ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo sheegay in maalinta oo Jimcaha oo maanta ku beegan uu markaasi banaanbax ka dhici doono taalada isla markaana shacab weynaha magaalada Muqdisho ugu baaqeen in ay markaasi iskugu soo baxaan
hase yeeshee waxaa arrintaasi ka dambeeyey dagaal aad u qaraar oo xalay saqdii dhexe ilaa soo gaaray toddobadii meelahaasi soo gaaray ayaa ka dhacay taalada Darjiga Dahsoon waxaana markaasi ciidamada dawladda u suurta gashay in guud ahaanba ay la wareegaan aagaasi oo taalada Darjiga wadooyinka soo gala taalada ayaa saaka xiran ciidamada booliska ayaa arkaysa iyo kuwa militariga nabad sugidda qaybahooda kala duwan oo goobtaasi markaasi xiray dadka deegaanka dadkana u jeedaan waa dadka deegaanka degmada Shangaani waxay markaasi ama ay dhidheenayaan xaaladda magaalada Muqdisho iyo aaga banaanbaxa loo qorsheeyay hase yeeshee waa loo diiday in ay markaasi tagaan wadada laamiga ah ee aada isgoyska taalada Darjiga Dahsoon markasta waxaa sii kordhaya ciidamada booliska oo dadka shacabka kala ceerinaya waxaa sidoo kale jirta ciidamada militariga oo wadooyinka maraya oo markaasi aan ogoleen in goobtaasi la tago markasta xaaladda waa isbedeli kartaa oo jawiga magaalada ayaa isbedeli kara inkastoo hadda xaaladda ay degan tahay oo ciidamada dawladda iyo kuwii markaasi midowga musharaxiinta ay iska agdhow yihiin oo ay wada joogaan aaga taalada Darjiga Dahsoon midowga musharaxiinta ciidamadooda ayaa difaac kaga jiro sida la sheegay hotel Naasa Habloto iyo sidoo kale ciidamada dawladda ayaa guud ahaanba waxay difaac kaga jiraan aaga taalada Darjiga Dahsoon marka waa goobta dagaalka ka dhacay markaasi haddana xaaladda waa ay degan tahay labada dhinac oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in labada dhinac isku eedeeyeen dagaalkaasi in cid walbaba iyada ay ka dambeysay midowga musharaxiinta madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh oo warbaahinta la hadlay saq dhexe kadib markii dagaalku istaagay waxay arrintaasi ku eedeeyeen madaxda dawladda gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay sheegeen in dagaalkaasi uu isagoo amray ciidamada dawladda ay dagaal culus ku soo qaadeen dadkan aad u jeedaan waa dad ka soo qaxaya aaga taalada Darjiga Dahsoon waxay u qaxayaan dhanka kale ee degmada Shangaani si ay markaasi caruurtooda iyo deegaankooda ay markaasi ay u qaxaan xalay dagaal adag ayaa agtooda ka dhacay waxay sheegeen in markaasi khasaare uu jiro balse ilaa iyo hadda ay sheegi karin waa u jeedaan inta badan waxay ka soo qaxayaan dhanka Boondheere oo waxay soo aadeen dhanka Shangaani waxay u badan caruur iyo haween u badan waxayna sheegeen in markaasi ay aagaasi ka soo qaxayaan marka waxaa labada dhinac ay isku eedeeyeen in dagaalkaasi cid walba iyada ay ka dambeysay hase yeeshee musharaxiinta oo hadlay waxay arrintaasi ku eedeeyeen dawladda madaxda dawladda gaar ahaan madaxweynaha Farmaajo inuu amray wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya oo asna xalay waqti dambe qoraal soo saaray waxa uu sheegay in maleeshiyaad hubeysan oo aan la ogeyn halka ay ka tirsiin ay weerar ku soo qaadeen bar control oo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin aaga taalada Darjiga Dahsoon halkaasi oo laga ilaaliyo ammaanka caasimadda sida uu sheegay wasiirka balse ciidamada dawladda ay iska difaaceen in markaasi weerar kaga yimid maleeshiyaadka ay sheegeen dawladda waxa uu sheegay wasiirka in ciidamada amniga ay goobahooda ku sugan yihiin oo maleeshiyaadkii soo weeraray ay iska difaaceen isla markaana aan loo dulqaadanaynin in markaasi amniga caasimadda qalqal geliyo sida uu hadal ku dhigay musharaxiintan arrintaasi dawladda ay ku eedeeyeen marka dadkii shacabka ahaa oo saaki qorsheynayay in ay banaanbaxa ka qayb qaataan ama ay tagaan taalada Darjiga Dahsoon si kale ayay la noqotay oo dabaabaad ciidamo ah oo markaasi iyo ciidamo tiro badan oo militari ah ayaa goobtii la dhigay oo markaasi way adkaanaysaa sida nin banaanbax ka qayb qaadanaya inuu goobtaasi gaaro qof shacabna way ka sii daran tahay marka xaaladda ayaa iska yar degan oo dadkii shacabka ah oo xaafadahan deganaa iyo banaanbaxyaashii ayaa goobtan ku sugan oo suuqa Shangaani ayaa la yiraahdaa shanta geed la yiraahdaa marka inta badan waa dadkii xaafadda deganaa iyo qaar ka mid ah banaanbaxyaasha qorsheynaya inay ka qayb qaataan halkaasi dadka ka soo socdo waxay dhanka Boondheere ay ka soo qaxayaan marka waa idin soo gudbin doonaa wixii warar ku soo kordho